السلام عليكم ورحمة الله كسودو جانال كيغا عن يوتيوب عاو محلي وضع عاو توبيك مهمة ayaan ka hadli doonaa topic caaw waxaa waaye dad health literacy ama nahay dad oo ku fiican inay wax akhriyaan maxaa la dhahay weliba dhinaca caafimaadka dhakhtarka wuxuu soo dhahay waxyaaba caafimaad ka hadlaayo fahmo oo akhriya ma nahay taas ayaan caawa insha Allah uga hadli doonaa maanta sida ognahay social media waa meel aad badweyn u ah waxa waaye baddaas weyntana haddii aad gashid inaad ka dabaalan taqaanid aad muhiim u tahay adoo dabaal ka seen hadda xaggaas isku gashid waa ku ilaahay ku naxariisto marka horta waxaa jiro maanta dad badan oo motivational speakers dad badan oo maxaa la influencer dad Soomaaliyeena oo soo baxay dad oo maxaa la dhahay dhiirigeliyaal coaches wow masha Allah waqti waxaa jirta isdhihi jir kaale wax YouTube marka arko qof Soomaali dhan fiirsan jirna isdhihi jiray reaction soo hada alxamdulillah wallahi dad badan aqal badan maskax badan karti badan asoo baxay laakiin waxa ku soo daba dhuuntay dad badan oo jahli ah annagana waxa dhigi karaa dad waxana dhinaca caafimaadka iyo wax akhriska dhinaca waliba caafimaadkana aqoon badan u leenahay fahansanahay muhiim ah in caafimaadka baratay laakiin fahansan tahay xogow yar wax ka fahansantahay oo akhrin kartid ugu yaraan dhakhtarka aad wuxuu ku soo dhahay xataa fahmi kartid raadin kartid qof noocaas ayna tahay iyo qof markuu wax ku sheegayo qof reflect samayn karo maskaxdan yar ilaahay muxuu ku siiyey waxaan indhahana ku arkayna moogtahay in aad iska arkin maraayadaada markaa hor istaagto isdaawanaysid waan maskaxda signal loo diraa maskaxda ay soo turjintaa kadib waxaad daawanaysid lagu sheegayaa waa mucjiso Soomaan ilaahay maskaxdaas weynuu ku siiyey oo baaxad intaas leeg leh marka qofka ku soo hor istaagayo qofkaas wuxuu rabo ku sheegayaa adigii waa iska qaadatay aqoon muleed ma fahansanid dhibka marka jiro yaa u taalaa inay ka hadlaan dadka caafimaadka bartay weliba caafimaadka wuu weyn yahay nurse nutrition medicine maxaa la dhahay aad u weyn yahay waa tirna haddaa dhaho marka psychologyga dadka bartay ayadana aad dadkeena ugu baahan yihiin marka waxaa waaye dhibkana heystaa waxay tahay waxaa maanta arkaa coachiga soo baxay laga yaabo wiilal badan jirkooda bis inay dhiseen wiilkan waxaa laga yaabaa inuu natural way ku dhisay jirkiisa mise inuu bawdaradan iyo waxyaabo oo xataa fiicneen iyo cirbad iyo waxyaabo qaatay topicaas mana kasoo hadli doona waxyaabaha la qaatay iyo effectyada leeyihiin gabdho kale jiro ayagana jirkeeda waxaa laga yaabaa inay operation soo sameysay waxaa laga yaabaa in xanuuna keeni karo marmar ilaahay og qofka dad badan waxaa jiro miisaan degdeg uga dhaco oo caafimaad ahayn xanuuna keeni karo qofkan wuxuu la nool yahay ma ogid laakiin gabadhii oo xaq ku hor imaanaysa shalay taqaanay oo wow as leedahay markaas waxaa leedahay what war saaxiibay anaga dad waxaan aad korayso saaxiibay maanta waa shidan tahay miisaanka sidoo kaaga dhacay ii sheeg markaas gabadhina waxay is leedahay ka sii wal markaas leedahay way haa haldahay markii laba gabdhood wax su'aalaan maanta gabadhii channel ay furanaysaa waxay leedahay soo dhawaada maxaa la dhahay maanta waxaan kaga sheekeynaa miisaankan sidaan iskaga rido intaanoo gabdhe ya saaxiibisay kurdi noo sheeg waxay leedahay kadib inuu business waa inaad ay samaysaa gabadha maskaxay leedahay ilaa gabadho caqli sii waaye kadibna waxay leedahay soo baxa WhatsApp group oo samaysanay xaggaas ku aruursanay sida ariga kadibna waxay rabto ee u qortaa marka mid ogaada ilaahay dadkan bini'aadanka arkaysid jirkooda uu kala duwan marka gain weight sameynayno maxaa la dhahay ama oo gabar de arabtid murqo inaad dhisatid rabtid mise inaa maxaa la dhahay isluubtid rabtid maxaa la dhahay nooca rabtid jirkaaga ugu ciyaartid rabtid ciyaartid negative maayaa waxa ka wadaa goor hoos markaa aadaysid
nooc rabtid baad rabtid waxa laga yaabaa in waqti dheer gabarna ku qaadato ama wiilba general ahaan ka hadlaya qofna waqti yar oo aad u gaaban ku qaato oo degdeg saas maxaa la miisaanka ka dhaco marka jirkeena ilaawin ilaahay wuxuu kala sameeyay qaabab alashaan kala duwan ayadana waa ka soo hadli doona in ma aha marka aad u aragtid qof walba oo miisaan iska soo riday sidoo iskaga riday talaysi aad wax walba iska daba ordeed qofkan talam ku siin karo qofkan wax ma bartay aqoon mu leeyahay howlonga waxaan aqoon inta la ugu leeyahay backgroundkiisa qofkan wax ku sheegay waa dadka qaarkood waxyaabo wallahi ka hadlayaan waxa waaye waxyaabo aad iyo aad qalad u ah oo ay ku xalladin caaqarana ilaahay uu kugu cadaabi karo oo dambi aad binaadka galisada lacag u qaadato waliba miisa aabis dhahdi fiis ku raadsan dhinacna adduunka waxa soo maray darajooyin badan America oo kale meelaha waxay ku jirtaa ugu quraafaadka badan ay ahayd dhaqaatiir dad badan waxaa jiro iska dhigi jiray dad health outras dad badan waxaa jiro tirooyin dad siin jiray sida dadka masaakiinta kansarka ku dhaco kale iyo jirana ku daaweynay dhaqaatiirta daawadooda qof intuu joojiyay cimrigiisa soo gaaban jiray qof caawimaad heli lahaa dad kale waxay ka qaadanayaan sidaan oo kale la dhaxay xanuuna la daalan noocyo badan hadda xanuunka MS kala dhaho kale dad badan oo dadka khiyaanaa jiro adduunka waliba way jirtaa laakiin annaga heerka aan maanta joogno dad annaga awalba ahayn hadda soo kacay oo aqoontina u yarayd haddii nagu soo bataan waa daadiyada dadka ah please ogow waxyaabo badan ku fiican tahay jirto talent aad leedahay anaa ku qarsan qof walba adduunka maanta ku nool talent yu leeyahay way kugu dhex jirtaa adiga soo hel adiga is ogow adiga is baro naftaada fadhiiso bal sheekayso maxaa ku fiican tahay is ogow kadib markaa TikTok ama YouTube ama wax furanaysa waa inaa adoo og waxa ka hadlaysid waa inaa dadka hor imaataa haddii marka ay noqoto waxyaabo yacni mise waxyaabo badan oo wanaagsan oo waxaa jira dadka xiiseeyaan oo madadaalo u noqonayo inaa story ka sheekaysid inaa maxaa la dhahaa qisooyin ka sheekaysid inaa maxaa la vlog soo duubtid wax soo kala sameyn kartaa dhiirigelin badan oo waxaa jirta sameyn kartid qofba wuxuu fiican yahay hooyadoo kale hooyanimada ka hadli kartaa ilmaha ka hadli kartaa waxyaabo badan laakiin please daawo cunto qof kale ma talin kartid daawada ma aha kaliya daawo oo xanuun qof lagu qoray fitamiinada laftirkooda waa halis qof walba ma qaadan karo marmar waa lagu samoobaa hadda waxaa jirta maalin hore bahalkan maxaa la dhahaa beerka oo doofaarka aada looga cunaa wadankan ciyaalka aada u cunaan kadib maxaa ku dhacday waxaa la baaritaan la soo sameeyay waxaa la dhahay 40% ama 40% hoos loo dhigayaa alshan qaadashada fitamiin eega so waxaana jirkiis ku bato qofkan sunay ku noqonay waxaana jirkan mar walba qashin saarsa sameynaa beerka aada sunto dhan daawooyinkana uma fiicna badan jirkeena iyo beerkeena marka please wax talaha iska siin hooyo uur talaha siin fitamiin iyo daawo u qorin ilmo yar talaha siinin daawooyin badan wallahi marar badan waxa arkaa mise waxyaabo badan ay kala hadlayaan waxaana fiican waxaana si fiican cun waqtigan cunkan kala samee ma dhihi kartid waxa arkaysaa waqti gabar uur leh waxa arkaysaa gabdho kula talinayo waxyaabo carbs badan u qorayo dhahan saan samee adiga shaqadaada ma please sister ninka kale asagana biraha qaado isku mooday maskaxda kori please waxaan ma jeceshahay ma xiisaysaa waxbarasho aad soo baro adoo dad ku sheegi karta soo noqo research badan soo sameey wax akhriska jeclow laakiin lama dadka anoo TikTok ama YouTube ka dhex marayaan qafarka waan dhageystay wixii oo dhahay oo aad u fahansaneen hadaa ka waranaad adoo aad u fahansaneen biology soo dhigan dadka wax u sheegtid please marka waxaan rajeynayaa idinkana qof walba aragtiin waxa ka qaadanin adigana adduunka meesha jahliga ugu xun waxa waaye waxaad aqoon u lahayn inaad dadka inta shaata qurux badan soo qaadatid soo fadhiistid tiraahdo waxaan wadaadiye please ceeb waaye
kawaanto marka waxaan rajeynayaa in ka hesheen topigan oo wax badan dadkeena saacidi doono ama wax ka baran doontiin talada kala qaadan doono mahayna qafne xirfadiisa ka xumaay iyo horumarkiisa ka xumaay mise maxaa la dhahay sidaan dadkeen dhahnaa horumarkayga ka xunta oo kale no taas maaha keliya waxaa waaye talo walaaltinimo wallahi beri way kugu soo noqoneen waxaan amaanta sameynaysid marka assalaamu calaykum waraxmatullah